Nelson Mandela xilligii uu baranayay jaamacaddiisa sharciga waa madaxweynihii South Africa aynu naqaanay taariikhda caanka ah leh waxa uu sameeyey mid ka mid ah macallimiintiisa oo caddaan ah baa xurguf yara dhex marto macallinkaas ka necbaa Mandela kadib maalmaha ka mid ah maqaayad ku taala jaamacadda dhexdeeda baa professorkiisii oo Peter la oran jiray oo kursi fadhiyo cunto cunaya oo intuu Mandela cunto soo ritay buu soo dhinac fadhiistay professorkii baa su'aal weydiiyay wuxuu ku yiri Mr Mandela ma ogtahay doofaarka iyo shimbiruhu iyagoo wada cunteynaya inaanay meel wada fadhiisan Mandela iskama waalin waxa uu sameeyay si yaro degan buu wuxuu ugu yiri professor ha warwarin mar dhow waan ka duuli doonaa علشان inuu isagu doofaarkii yahay buu ka masalay anna shimbirta kaga tagi doon professorkii aad buu uga carooday hadalkaas wuxuu sameeyay marka uu damcay inuu ka guto kadib maalin kale oo fasalka dhexdiisa buu su'aal ku weydiiyay wuxuu yiri Mr Mandela ka waran haddaad sanduuq ka heli lahayd laba shandadood oo midna ay xikmad tahay midna ay lacag tahay Mandela isagoo aan iska dhibin buu wuxuu yiri anigu waxa aan qaadan lahaa borsada lacagta kadib professorka intuu qoslay waa intii uu rabay uu si jees uu yiri booskaaga haddaan taagnaan lahaa anigu waxaan qaadan lahaa borsada xikmadda Mandela isagoo istajinaya si yaro akhlaaqay ku dheehantay baa wuxuu yiri nin walbiba wixii ka maqan buu dooran lahaa professorkii qac kala ka yeedhay waxa uu sameeyay waraaqdii imtixaanku wuxuu ugu qoray doqon buu ugu qoray oo u dhiibay kadib Mandela waraaqdiisa buu qaatay oo la fariistay oo uu arkay markii ardaydii wixii kala degteen buu wuxuu u kacay xaqii professorka waxa uu ku yiri professor waraaqda magacaagan ku saxeexay balse wax dhibca ima aasi wax jawaab ima aasi ma garatay kadib professorkii waa qaacdi saddexaad oo ka yeedhay markasta ay istiraahadid علشان qof la gooy ama sharaftiisa ku dheel oo aan maxay ahaaytay isagoo aanu sharaftiisa aan hoos u dhigin adigay kula go'aysa sheekada waxaan ku keenay Taras Shafshango waxa uu ka mid ahaa professoradii dalka Canada gaar ahaan magaalada Winnipeg waa nin philosopher oo weyn wuxuu aad ardayda u bari jiray dhanka akhlaaqiyadka iyo qofku inaanu darajada uu taagan yahay aanu hoos isaga dhigin weliga qofna ha ka ogolaan in akhlaaqdaada iyo sharaftaada uu hoos u dhigo adiguna hoos ay isu dhigin xigmadaha iyo xikmado badan ayaan idinla wadaagi doonaa insha Allah waaniga ficil burkuuda socod wanaagsan